dhaliisha muuqatana waxa weeyaan in ciidanka qaranka iyo mataqaanaa dawladda sida looga talagalay ugu muuqan macna dagaalka la isku hagradana sax ma intaas waxaan u soo jiireynay intaas oo dhul aan u soo mareynay walaalaha inaan garab istaagno oo maxaa ku garab istaagno oo ku garab dhimanno oo idinku xawaal noqono oo idinku dhaawac noqono oo idinku dhimasho noqono oo dhiig isu shubnaan u nimid bacdi salaan annaga xaragan uma imaadin dalxiisna uma imaadin muqkuri waxaan u nimid inaan walaalahan garab istaagno walaalahan inaan ku garab istaagno xoog xoolo xandha difaac inta inaan ku garab istaagno ugu talagalno waxaa tiin annaga walaalahan waxaa tiin dadkayni waxaa tiin jirkiisa lahaay jiridda kama qoslaana ciidanka ugu geesay shalay markaan soo qaaday 5 saac ay ahayd xalay markaan meeshaan imaadaynina 4 saac ay ahayd intaas waxaan u soo jiireynay intaas oo dhul aan u soo mareynay walaalaha inaan garab istaagno oo maxaa ku garab istaagno oo ku garab dhimanno oo idinku xawaal noqono oo idinku dhaawac noqono oo idinku dhimasho noqono oo dhiig isu shubnaan u nimid intaas waa inta walaalnimada oo u nimid weeyaan waxaan rabaa hal fursad aan rabaa inaan ka hadlo magaalada Muqkuri waa degmo Soomaaliyeed waa degmo reer Hiiraan dawladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo golihiisa wasiirada golihiisa baarlamaanka dhammaan xukuumadda dan qaran oo dhan waxaan leenahay magaaladan waa magaalo Soomaaliyeed ma ahan mid xuduud ku taalo Itoobiya ma dhaliisha muuqatana waxa weeyaan in ciidanka qaranka iyo mataqaanaa dawladda sida looga talagalay ugu muuqan macna dagaalka la isku hagradana sax ma Soomaali intii waqdad kala gali karto 30 sano ay soo dhaafnay soo kala gasho Soomaali intay kala taban karto waa soo kala tabatay Soomaali intay dib kala qaadan karto waa soo kala qaadatay waxaan rabnaa in la isu heliyo oo madaxweynaha iyo mataqaanaa golihiisa wasiirada xildhibaanadiisa siyaasadda hoose ee kursi raadiska inta la iska daayo Soomaalinimadii iyo difaaca wadanka loo istaagan rabnaa taliyaasha ciidamada war adeerow haddaad shalay darajo raadinaysid haddaad shalay mataqaanaa aad raadinaysid meel aad wax un ka noqon haddaa laga dhigaa saaxanine Muqkuri mow banooniga wuxuu ka in laga baasan la rabaa Muqkuri banooniga waxa in laga laada la rabaa Muqkuri haddaan 180 kilomitir xagga ka nimid oo nimaadna walaalahan garab taaganahay adigoo magacii qaranka wata inaad maqnaato suuragal ma waxaan rabnaa inuu madaxweynaha baaqayn u hoggaansamo si guud waxaan rabnaa ciidanka mataqaana meeshaan joogay macawisleyda inuu hambaliyo ana qaf u tacsiyeyn maayo ninka dhinto waa mujaahid in la dhintana xaq waay dhimisho dabadeeda waa la xoreystaa waxaan rabaa inaan u hambaliyo ciidankaas guulaha ay gaareen 48 saac aan soo dhaafnay walaalayaal oo maasantiin halkeeda ka sii wada annagana idin garab taagana assalaamu calaykum waraxmatullahi